أبو إسحاق المروزي وحو يدي نين هانتيلا أيا بغداد أندرسكو أهيد وبدنا آن لاين هل ويل بوبد كلها ويل كدوق أوما إكو نين حافظ الدقن بالغوتو ما وإجيا ويلكو وضيقنا أدو وايينا ويل كاسو كايستا مالك الدنباء أنا والسعودان اسكو صوبحاني ودقي أو السعودة markaasuu yiri yaan is wareysana xagee u socoto wuxuu yiri sanadkan waxaan rabaa inaan xajiyo wiilkaygana aan kaxeeyo oo maxaad rabtaa wuxuu yiri ujeedada u weyn xajka aan kale waxa kamida ujeedada weyn waxa kamida inaan nimanka reer bari mudaj aan helo maka lagu kala baxo wiilka loo bandhigo qaa'if hidi sooca ma ana dhalay mise waa lay dhuumiyaan ogaado Abu Ishaq al-Marwazi waxa yiri wiilkanaad ka leedahay nimankan qaafada waa niman imtixaan oo dadka way kala saaraan waxaad yeeli wada asturan tahay islaantaadi wiilka iska hayso oo adigu xaj wiilkan afraa ka qaad maya waxaa jirta inaan maka istaago reebani mudajin aan kala baxno masaasaha faraanka qaaday buu xajiyay wiilkiisii buu la tagay ninka lagu tuunsanaa ilaahay amarkii qoliyaha xujaajta sacuudiga ku jira rafaqadaas ku jira waa maka la tagay ayaan anigu duurka u baxay buu wiilkii iyo ninkii lagu tuunsanaa iyo duqay kale iyo rag fara badan oo jamaacada socotay ah baa la dhax fadhiisiyay nin qaa'if oo reer bari mudaja loogu yeeray waxa la wiilkaan ninka dhalay soo saar wuu fiiriyay wuxuu yiri wiilkaan inta fadhida midna ma dhalin buu kii lagu tumaya ku jira wuu fiiriyay kii lagu tumay dhax fadhiyo wuxuu yiri ninna ma dhalin buu wiilka ya odaygii dhalay weynka banaanka u baxay hayo qoliyo cusub baa la keenay wiilka la dhax fadhiisiyay reerkoo dhan xaafadii wuxuu yiri ma dhalin kuwa kale ma dhalin saddex markuu kiciyay yaa loo odayga loo qoxay wiilkii meel la saar la yahay ninka qaa'ifka inuu wali taagahayaay baynakee asaga baa hal soo fuulay oo watay uu soo gaadiidsaday oday weyn oo adoon ah oo aabihii u lahaan jiray oo aabihii ka dhaxlay baartiga ku wada oo ku hogaaminay ninkii qaa'ifka ay hidi soocay reebani mudlij ee wiilka dul taagnaa markuu saa ninka u soo baxay irtiga saaraa iyo adoonkii weynay waayeelka ku hogaaminay wuxuu Allahu akbar wuxuu ar-raakibu abu hada al-ghulam buri وقائد البعير أبو الراكب بوري بلا بك دعدي حوري الله أكبر بوري ويلك هذا أنت اللي يوريجنها أبيه وكارتك سو سارن بوري لما كنت امتحان باشا غير بس كا إلهي سيوي ما علم الله برتما واهبه وحوري الراكب وحوري وأبو هذا الغلام نكرتك سو سارن ويلك أبيه ويبو هوش عضاتي لحور لكن قايد كنينك صارن اي سو سعود ويلك دلينا ابي waa ninka hogaaminaya adoonka weyn ee ritiga wada ayaa ninka ritiga saaran dhalay buu odayga xaajiga ahaa wuxuu intaan suuxay baan dhacay fawaqactu maghshiyan alayhi bala ba ka dhacday Sooma muxuu raadinay wiil buu rabay inuu saxadee asagii baa la saxo lagu foofay odaygu markuu miirsaday adigu biyo lagu shubo miirsado kacay xajkiisa dhameystay buu noqday Baghdad buu ku noqday markuu Baghdad ku noqday buu hooyadii dhuunta ku dhuxooyay hada run ii sheegin waa la kala baxaya nin qaa'if hooyada sooca ayaa cadeeyay wiilkan aan dhalay Arab way samartay wiilkan aan dhalay laakiin anigu wuxuu yiri odayga adoonka ay hebelay weynaan waan dhaxlay aabbahay ka dhaxlay baa ku dhalay warka meel saar buu doqdi waxay waxba ay diin rubaan ku sheegaya aabbaha oday waayeela oo qad balaqa min al-kibar itiyan bu'a waabaan isku dhacnay markaan isku dhacnay buu saddex dalaqad bay ugu furay markuu ii furay ayuu ka qoomay hadana furitaanki inuu isoo cishado damcay mahal buu samaystay odaygan weyn ee adoonka ah ayuu igu maxlalay habeenaan la bariyay kadib waxaan u maana wuxuu igu maqan yahay yuduqa aabbaha dib isoo cishaday oo mar labaad ii guursaday saasad ku dhalatay saasad ku idan muxuu noqday
وويل محلل محل كل شيء ودقن ويل كيسنا نصب من وضع سقط على ستوسا هاوشا وحاكا صار هل أضيع ريب من مدلجة وحال مركب فهمي قرطان من كان قويس كان معها سيدنا عمر قائف بوها